bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada toos inagala socda youtube-ka maxamed soomaali tube dhammaan saaxiibada inagu cusub waxaan ka codsanaya inay subscribe-ka taabtaan gambalaalkeena ay furtaan sidii goor walba aynu isla soconno aad baad u mahadsantihiin qodobada xiisaha badan aad barnaamijka ciyaaraan idinkuga haya maanta aad ku dhageysan doontaan hadduu gulla saamaxo waxaa qeyb ka noqon doona saaxiibayaal kooxda Paris Saint-Germain oo ku dhawaaqday siixa Andre Herrera lambarkii loo xiray ciyaaryahanka Andre Herrera barnaamijkan idinkuga haya aad ku daawan doontaan Arjen Robben oo ku dhawaaqay inuu isaga fadhiistay gebi ahaanba ciyaarista kubadda cagta sidoo kale qodobada xiisaha badan aad barnaamijkan idinkuga haya maanta aad ku daawan doontaan hadduu gulla saamaxo 13 xidiga u tartamaya goordhalinta tartanka koobka Amerika ee sanada 2019 iyo ciyaaryahanka Delight oo si toos ah ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Blaugrana qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu haya waa mar kale iyo barnaamijkii ciyaaraha mar kale aragti cudon saaxiibayaal qodobadii hore ayaad maqasheen iyagoo intaasi ka faahfaahsan kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa xaqiijisay inay la siixatay laacibka qadka dhexe Manchester United Andre Herrera xidiga xulka qaranka Isbaanishka ayaa PSG qalinka ugu duugay 5 sanadood oo ku sii joogayo caasimada wadanka Faransiiska Herrera oo ka soo tagay Old Trafford kadib markuu ku guuldareystay inuu heshiis cusub la gaaro kooxda ka dhashay horyaalka Premier League ayaana la filayaa mudooyinka ugu dambeeya inuu ku biriyo kooxda ee aadka u xifaaltamaan ee Paris Saint-Germain haatan heshiiska Herrera ayaa la xaqiijiyay iyadoo kooxda Paris Saint-Germain website-keeda ay shaacisay inay la soo wareegtay laacibka qadka dhexe Andre Herrera bayaan ka soo baxay kooxda PSG ayaana ka dhigan Paris Saint-Germain waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inuu ku biro Andre Herrera laacibka qadka dhexe reer Spain ayaa yimid Paris kadib markuu dhamaaday heshiiska Manchester United wuxuuna siixay qandaraas 5 sanadood oo kooxda caasimada ku sii joogayo xidiga reer Holland Arjen Robben ayaa ku dhawaaqay maanta inuu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta xillidaadiisa ay tahay 35 sano jir kadib markuu 10 sano uu joogay kooxda kubadda cagta Bayern Munich Arjen Robben oo qandaraasku ku joogay kooxda Bayern Munich uu soo ilaatay 30 bishii la soo dhaafay ayaana uu sheegay warbaahinta dalka Netherlands inuu ka fariistay kubadda cagta gabi ahaanba shaki kuma jiro inaan go'aankii ugu dambeeyay qaatay ka fariigista kubadda cagta Arjen Robben oo soo xirtay maaliyadaha kooxaha ay ka mid yihiin Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ayaa kula guuleystay kooxda u ciyaara kaga fariistay Bayern Munich hal jeer oo tartanka Champions League iyo 7 jeer oo horyaalka Bundesliga guud ahaan Arjen Robben ayaa kooxdii u soo ciyaaray oo dhan wuxuu u saftay 606 kulan wuxuuna dhaliyay 210 gool halka uu xulkiisa qaranka Netherlands u saftay 96 kulan wuxuuna u dhaliyay 37 gool taasoo ka dhigaysa inuu gabi ahaanba Robben dhaliyay 247 gool xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta halka uu kor uga qaaday 30 koob tartanka lagu jiro goolalinta koobka Amerika ayaa si aad u adag iyadoo 13 xidig ku tartamayso goolalinta kuwaasoo kulmadii ay ilaa haatan ciyaareen dhaliyeen min 2 gool waxaana intaasi dheer 8 ka mid ah 13 xidig ee fursad u haystaan inay gool kale ka dhaliyaan tartanka iyagoona wali ciyaari doonaan tartanka kuwaasoo u kala ciyaaray xulalka finaalka ciyaari doonaan Brazil iyo Peru iyo labada xul ee kaalinta saddexaad iyo afraad ee Argentina iyo xulka kubadda cagta ee Chile iyadoo aanay jirin waxyaabo kala saari doona xidigaha ku tartamay goolalinta waxaana abaalmarinta la guddoonsiin doonaa 13 xidig ee midkood goolalinta u soo baxay xidigaha u tartamay abaalmarinta goolalinta ayaana kala xidiga Edison Flores Peru, Roberto Firmino Everton, Filipe Coutinho Brazil, Luis Martinez Argentina, Edro Vargas iyo Alexis Sanchez oo Chile, Duvon Zapata Colombia, Coach Millones oo Japan, Edinson Cavani, Luis Suarez Uruguay,
goolasha laga dhaliyay kulmada lagu kala badiyay rigoorayaasha ayaana lagu darin tirada goolasha. Xidigaha ugu goolasha badan taariikhda tartanka xidiga sanadka ay ka qayb qaadanayaan tartanka ayaana ah Pilo Aguero kaasoo dhaliyay 13 gool. Xidiga Chile Fabregas oo ku xigay isagoo dhaliyay 12 gool. Frankie de Jong ayaa maanta si guul ah kaga gudbay tijaabada caafimaadka si loo dhammaystiro heshiiskiisa oo kaga mid noqonayo kooxda kubadda cagta Barcelona laga bilaabo xil ciyaareedka soo aadan. Sida laga soo xigtay wargeyska Isbaanishka ee Mundo Deportivo, Frankie de Jong ayaa soo gaaray isbitaalka Barcelona subaxnimadii saaka iyadoona baaritaanka caafimaadka u maray kooxda kubadda cagta Blaugrana. De Jong ayaa heli doona nasiinada ilaa iyo duhurnimada maanta ka hor inta uusan siixan qandaraas 5 sano uu kaga biirayo kooxda kubadda cagta ee ka xamaalata garoonka Camp Nou. Ciyaaryahanka reer Holland ayaa sawir xasuus laga qaadi doonaa garoonka Camp Nou kadibna waxaa loo soo bandhigi doonaa taageerayaasha isagoona shir jaraa'id ku qaadan doona qolka shirarka garoonka Camp Nou. guud ahaan saaxiibayaal intaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijkii ciyaaraha YouTube-ka Maxamed Soomaali Tube ayaa toos agala socoteen dhammaan saaxiibada waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inay subscribe-ka taabtaan gambaleelka inay furtaan sida goor walba inay isla soconaan baad u mahadsantihiin sidaad waqti walba baad inala socotaan.